dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saartay dilkii Elmas Elman Cali Axmed oo ka tirsaneyd qoyska caanka ah ee reer Elman taasi oo Arbacadii ku dhex geeriyootay gudaha xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho oo ahayd xabad kula dhacday gudaha xarunta Xalane. qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in dowladdu ay si adag u cambaaraynayso ficilka lagu dilay Elmas Elman. Elmas ayaa sida la sheegay waxa ku dhacay xabad aan ilaa iyo hadda la garanayn xilta ka soo riday iyadoo laga soo riday gudaha xarunta Xalane. marxuumad Elmas Elman waxay ahayd gabar daayar oo ka shaqeysa xuquuqda aadanaha isla markaana ahayd diblomaasi Soomaaliyeed oo ka soo shaqeysay safaaradda Soomaaliya ee waddanka Kenya. dowladda ayaa sheegtay inuu socdo baaritaan adag oo lagu soo qabanayo isla markaana cadaaladda lagu horkeenayo ciddii ka dambeysay dilka gabadhaasi qiimaha badnayd. Elmas ayaa markii xabadda laga soo saaray waxay noqotay xabad ka mid ah rasaasta ciidamada Amisom sida ay dad ku sugan xarunta Xalane u sheegeen. Halhays Media ma cadda haddii xabadda laga dhex riday xarunta Xalane iyo inay banaanka ka timi. si kastaba ha ahaatee markii ay xabaddu ku dhacday waxay saarnayd gaari dhex socday xarunta Xalane waxaana xabadda ay kaga timi dhinaca dambe ee gaariga. si kastaba ha ahaatee dilkan Elmas Elman ayaa imanaya iyadoo su'aal badan la geliyay nabadgelyada xarunta Xalane oo aanay dowladda Soomaaliya iyo hadda aanay war u hayn. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu sheegay inuu qoraal dheer u gudbin doono golaha ammaanka ee qaramada midoobay si looga wada xaajoodo xaruntaasi Xalane. haddaba daawadayaal wixii ku soo kordha waxaad kala socon doontiin Halhays Media. fadlan haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaada la wadaag. waa anigoo ah Maxamed Cali Daaha. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.